عبد الله عسكر برنامج كامر كان داوضي ان دغيستي waxyaalo fara badan oo aan aad uga xumaaday ayaan ku arkay oo qofku haduu dhinto in la xaqiro ma haduu isagii dhintay maanta oo aanu joogin de anaga goob joogayn oo joognay ibraahimna Allah yarxame wax alla wuxuu iga qarin jiray oo maxaan ku dhahdaayin aanan ogeyni may jirin tugri markuu wadanka soo galay gurigaygu joogay Abdullaahi Askar Cawil baa loo yaqaanay gurigaygu joogay nimanka kala wiimanaya horta labadooda ugu weynaa gurigayga joogan xitaa waxa jirtay walaalkay oo leeyahay Axmed Xasan Yuusuf ayaa Sacuudiga ka yimid uu soo degay Ibraahim markuu ka soo qaaday airportkii gurigu keenay waxaan ku yiri Ibraahim inagii baa biimo ku jirnaa walaalkay na reer dhanbu indhow yahay guriga ha keenine hotelkee because gurigeenu waa biimo hadii la inagu qabto wuxuu yiri ninka Isadiga oo igu yiri gurigii aan soo qaaday anu meel kale ma geyn karo walaalkay wuxuu dhex fadhii jiray Abdullaahi Askar oo Cawil loo yaqaan iyo Tugri gurigu la joogi jiray manu aqoonin Ibraahim wuxuu ugu sheegay inay yihiin niman saaxiibadiisa oo korasiyo dibadda ka yimid ayuu ugu sheegay walaalkayna uu la joogi jiray anna inta beerka fuglahay waxaan soo dhin jiray arma anigu naftayda already waaba naco biimadaasan ku jiraa laakiin waxaan oran jiray armad walaalkaana kala fata oo dhibtaasi ku dhacda aduu ala kulli xaal nimanka gurigan ku hayay Tugri gabadhiisu guriga way ugu iman jirtay waana is arki jireen way wada seexan jireen way wada joogi jireen Abdullaahi Askar gabadhiisu waxay ku ogeyd inuu dhaafay in loo diray kooras dibadda kooraskii dibadda say ugu ogeyd waa ka Abdullaahi Askar intuu xagga ka baxay mala xagga iyo Djibouti soo maray xagga ka soo galay SNMta markan uu gudaha soo galay gabadhiisu may ogeyd gabadhiisu waxay u iman jirtay Ibraahim Kinsi Musa la yiraahdo gabadhiisa Ibraahim bay u iman jirtay iyadoo ciyaal saddex caruur ay markaa wadatay waxay oran jirtay Ibraahim oo ninkii war kama helin bariyahaas wax wara ma ka haysaa wuxuu ku oran jiray ninkii uu iska caafimaad qaba uu ladan yahay meel heblaan jooga Abdullaahi Askar maanta uu nool yahay beenna kama sheegayo intuu kaco ayuu gabadhiisa daaqada ka daawan jiray waxaan iri laba goor markaan arkay inantani markay noo timaado waayo Abdullaahi Askar ma aqoon Cawil waayo daaqada uga daawada gabadhiisa Ibraahim wuxuu igu yiri waa gabadhiisii mana ogeyn inuu joogo hadii loo sheegana wuxuu ka baqayaa inay fashilmo marka sida la ajligeed weeyaan adiguna haw dhaqaaqin markay timaadana in maxaan ku leeyahay adan joogana daana la hadlay hadii kalena ma joogo on ku dheh marka xaaladii sida ahayd in Abdullaahi Askar iyo Tugri gurigayga ku hayay ay dumarkooda ogaayeen ay gabadhii Allah yarxamay oo ka dhintay Xasan Saleebaan oo la oran jiray Maka Xaaji Axmed Qulumbe ay habeenkii inta dharka iga qaado soo meeri jirtay soo kaawdeen jirtay oo keeni jirtay ayaa nimanka markaan daawaday meesha Ibraahim meel uu kaga jiro haba yaraatee barnaamijkii operationka maba jirto meel kasta waxa soo galay niman leh annaga operationka fulinay annaga hawsha ku jirnay in nimanka annaga hayn jirno aqalla la soo sawiraan arkay marka Ibraahim haduu dhintay taariikhdu ma gabowdo annaguna waanu joognaa wax beenana ku darmaya intaan idin sheegaya waa wada run maca dumarkooda ayaga marxaatiya Tugri iyo Abdullaahi Askar bamaanta way nool yihiin marka waxa dhacday nimankani guriga markay ku jiraan maalin oo dhan guriga ku jireen habeenkii gabalku markuu dhaco nin walba intuu go'shaala qaato oo macawis qaato oo qorigiisa yar qaato ayay xabad u bixi jireen dooxay ka dhici jireen waxay qaban jireen daantan idaacadii xaggana soo qaban jireen operatiooda iyo hawlahooda waxay ku jiraan bay soo qabsan jireen ka bacdi waxay soo noqon jireen habeenkii iyagoo xabad u socda muddo dhan baan sidaa ku jirnay habeenkii dambe Abdullaahi Askar way ka yimaadeen iyagoo kaligood socda bay yimaadeen habeenkii Ibraahim markuu soo galay saqdi dhexe wuxuu igu yiri Cawil baa naga hadhay caawa waxa go'dan kaga hadhay wuxuu naga hadhay daantaas marka ilaa habeen dambe buu iman doonaa sidii baan habeenkii ku seexanay nimankii kalena guriga ku jiraan Tugri iyo niman kale iyagu askar iyo waxa ahaa bas dabadna habeenkii markaan seexanay subaxii salaadii markay ahayd 5tii subaxnimo ilaa 6dii waxaan ugu soo garaacday albaabka Maka Xaaji Axmed Qulumbe Allah u naxariistee oo ahayd xaaskii Xasan Saleebaan iyaduna imka way dhimatay Maka waxay tiri Khadraay ragii ma dhan yahay waxaan ku yiri may Cawil baa maqan waxay ku tiri nin baa la qabtay oo daanta lagu qabtay
إبراهيم waxaan ku jiifaa way soo gashay Ibrahim bay sida inta cagta uga qanjoorisay ayay ku tiri Ibrahim oo nin baa la qabtay intuu sariirta ku dul istaagay oo barortay oo macawista saa u qabsaday ayuu yiri tallaahi waa cawil ninka la qabtay ilaa maalintaas sidoo guriga uga booday Ibrahim cunto fiican ma cunin manuu seexanin manuu fadhiisan inta wuxuu ku jiray un shix isxaaq waxa uu qaban shix isxaaq waxa uu qaban war ninkii xaq u maraya ninkii waa la dilayaayo wuxuu ku jiraa jeelka adigu habeenkii dambe Ibrahim isagoo aan lahayn shaqada xirada ayuu wuxuu sameeyay sarkaalkii shaqada xirada lahaa ayuu ka bedeshay wuxuu ii soo diray inaan taksiila inankii taksiila Axmed Sayd leeyahay wuxuu ku yiri Axmed Saydow iga soo qaad gurigii cunto iyo go iyo waxba u soo dirtay shaqadaan galay khadrana u sheeg habeenka Ibrahim shaqada uu galin oo ka shaqeeyo wuxuu u galay hawshan uu fulinayo wixii uu ku qaban lahaa hub haday noqoto iyo qalab haday noqotoba soo xirada uga la baxo wixii si uu dabeedna fushaday wixii si uu meel wada dhigtay adigu 3 habeen 4 habeen ma garanayo waxay ahayd ay Cabdilaahi askar lagu hayay meesha 3 habeen iyo 4 habeenba Ibrahim wuxuu ku jiray orod iyo sidii uu wax uu kala habeen lahaa uu la bixi lahaa rag baan ka arkay ajaladaha oranaya gawaadhidayada waday gawaadhidayada ka shaqeynaysay gawaadhidayada kan ahayd Ibrahim gaari muu haysan saacadii u dambeysay uu doonayay inuu la baxo Cabdilaahi askar nin baa noo soo galay la yiraahdo Haliil ninku wuxuu watay xaajiyad cusub wuxuu ku yiri Haliilow xaajiyadaysi wuxuu ku yiri Haliil xaajiyada anna qof baan ka soo qaatay isibuu ilaawan ku soo celinayay sidii uu dabeedna Haliil kaga qaatay xaajiyada Ibrahim Haliil wuxuu siiyay qorigiisii caadiga ah ee guriga yaalay iyo goorshaale intuu hubiyay iyo ku yiri qorigaana qaado go'aana ugu orod Haliil qorigiisii iyagu qaatay iyo wixii uu iska tagay Ibrahim sidii uu labisnaa markaa wuxuu xidhnaa direyskii saryaanada ahaa ee lagu guri jiray darajada ayuu xidhnaa uu labisnaa markaa uu sii baxayay anigu waan raacay waxaan u raacay dhakhtarka oo ay walaashi ku jirtay wuxuu yiri ina kan aamineen u tagnay aaminaan u tagnay isna uu labisnaa aniga dhakhtarkii buu iga tagay wuxuu yiri waxaan tagayaa feestadii 12 Abriil bay ahayd habeenkii waxay ahayd Cabdilaahi askar la doonayay in la keeno tiyaatarka isagoo qaawan lagu daawado subaxna la toogto isaguna barnaamijku watay waxay ahayd inuu la baxo ninka oo habeenkaas sameeyo operationka aniga se iimu sheegin habeenkaas inuu sameynayo operation oo biima galayo ninka la baxayo laakiin waan ogaa inuu kulli wax ku maqan yahay bas walaashi buu tagay walaashi wuxuu ku yiri aamina ay dhageyso inan taadan kula joogtaa iyo ka tagay oo miyiga ku noqonin ha kula joogto see kaaga qaadooyin kaadidii waxaas inantu markaa lagu hayaba xanuunayo dad bay istileen oo way jajabnay magaaladu bando bay noqonaysaa buu yiri lacagna uu siiyay lacagtaana hayso walaal inantaadan iska dirin buu yiri anigana wuxuu igu yiri isii sug waan kugu soo noqonayaa sidaan halkii ugu sugayaan waxaan maqlay rasaas dhacaysa rasaastii markaan maqlay ayaa la yiri talo waa maxay rasaastaasi dhakhtarka weyn baan joogay Hargeysa waxaan anigu markaa ku iri inantay walaalahaayeen iyo dumar nala joogay waa feestadoodii 12 Abriil malaha feestadii baa loo ridayaa kama baan fakirin in xaqi Cabdilaahi askar ku xidhnaa ee operation ku qaadayaan ku sameynayaan bas sidaan halkii u fadhiyay rasaastii way sii badatay anigu halkii fadhiya ayaa waxa ii yimi inaan taksiila oo la yiraahdo Axmed Sayd oo uu soo diray isagu qaad buu ku yiri gurigeedii inankii baa igu yiri ayna kan odaygii baa igu yiri qaade way soo qaaday wuxuu keenay gurigii markuu keenay intii aan soo soconay magaaladii waa dam waa bandow maxaan ku raad meel walba waxa taagan askar markaas la ii sheego la igu yiri miiskii saraakiisha ayaa nin ku jiray lala baxay dabeedna magaaladii saasay bandowtay markaasaan anu niyadayda ka yiri nin kale ma aha nin kala baxay waa Ibrahim waa ninkuna waa Awil dibal gurigii hadaad nabad gaadho yeenanka yaraa gurigii baan imi gurigii markaan iman in yar joogayna waxa ii yimi Haliil oo socda ninkii gaariga ka qaatay Haliil markaa wuxuu igu yiri Khadra Ibrahim ma soo noqday magaaladii dagaal baaba ka dhacay iyo gaarigii waxaan ku yiri Ibrahim uu soo noqonin waxaana la yiri nin baa la baxay ninkuna waa Awil oo ninkan guriga ku hayn jiray marka kulli Ibrahim waa qolada ninka la baxday orod meesha ka tagyaan lagu arkine oo soo noqonin baan ku yiri marwa Khadra waxa jiray in operation ay ragla sameeyeen Allah naxariistay Ibrahim yarkii kala ku dhintay Allah naxariista dhamaantood marka adigu
ka ogaalahaan intii aad ogeyd xasan turki oo kale iyo operation kula jiray waqtiyada markii uu baxayay Ibrahim iyagu ma guriga ku joogeen mise iyaguna maalinta way si baxeen oo kale Cabdisalaam Tukri isagu wuxuu ahaa nin wintida isagiyo Cabdilaahi Askar waxay ahaayeen rag wadanka soo galay oo la qarinayo marka Tukri operation ma sameyn karo daaqad intuu soo fadhiisto gaari intuu ka haysto xero ma dhex mari karo laakiin wuu kula jiray operation ka Ibrahim markii ninkii laga qabtay 12 nin ay ahaayeen 12 ka nin qaar baa jiray xitaa u jeel ka soo damintay dabadeedna operation ka markii sameynayeen 12 ka qof bay ahaayeen oo Ibrahim u madaxa hay watay Cabdisalaam Tukrina de saraakiilka wixii kale sarkaal ahay soo raaciyay ayuu ahaa laakiin Cabdisalaam Tukrina de operation sameyn kara ma aha nin wintida la qarinayay ayuu ahaa laakiin uu la galo de ninkii saaxiibkii markii la qabtay de uu la galay hawshii markii hore ay u yimaadeen ee wadanka u soo galayna de kollay waxay ahayd inay meel operation wax sameeyaan iyo gudaha qaban qaabinayeen marka aanu raggan faraha badan leh aan daawaday ee wada operationka ku jiray de operation ka habeenka Ibrahim la baxay cidina kula may jirin Ibrahim ragga askartu wata iyo inta mooyaane wax la qaban qaabiyay wuxuu ahaa degdeg 3 habeen iyo 4 habeen laakiin ragga waxa laga yaabaa in operation de kale oo ay islahaayeen wadanka ku qabsada ama de wax ku sameeyo kale ila gudaha waxay u soo galeen waxay ahayd hawl inay qabtaan ragga kale faraha badan marka aan daawaday operationkii kulli la waan wada galay de operation ka kalun baan is leeyahay ayay ku jireen kan say Ibrahim cidina kuma weerinay markuu gaani dilayay uu sigaarka ku baqtiinayay ee ulaadka la dhacay ninkii qura ka damqaday saraakiishu saasay ugu xeeraayeen cid walbana way lahaayeen reesh Isxaaq ninkii qura ka damqaday ee yiri gaani war ka daa ninka saad u galayso oo xabad ku dhufo Ibrahim booha Ibrahim waa la xiray maalintaas haddana gaani intuu lacag xaala siiyay ayuu soo daayay lacagtii xaalkaydu gaanisiyo 50 kun bay ahayd 50 kun Ibrahim wuxuu ka dhigtay batrool iyo qarashkiisa uu ku baxayay 2 kun oo inankiisa yar gacanta u galiyay ayuu nooga tagay wax lacag ah marka waxaad jirtaa in ay hadiyo jeeraad marka laga sheekeynayo taxanaha taariikhda ay wax waxyaabo badan khaldami karaan marka adiga kaamir waa khadar ahaan maxaad ku dhiirigelinaysaa dadka hadiyo jeer marka laga sheekeynayo halgamada soo kale saadiga maxaa kaaga meeli inaad ku saxdo waxyaabo badan oo imika khaldan hawsha aynkaas oo kala magalisa wixii aan wax ka ogahay ee aan maqlo in meediyaha markaan daawado ama dhageysto aan ka maqlo inuu khalad yahay aad iyo aad baan u jeclahay haddii aan wax ka ogahay inaan waxa sax ahay runta ah ka sheego Ibrahimna maanta waa nin mujaahida oo dhintay wuu inaga hooseeya lib u lahaa ama wixii uu sameeyay in laga duudsiyo oo maanta wuu dhintay wixii dad kale ay wada sheegaan anigu aad iyo aad baan uga xumaaday because waan u soo dhintay habeen qura raaxo ma seexan sidii anoo ku jira silicii iyo darxumadii ayaan la igu xiray oo Ibrahim ku baxay sheekada waan ku wadayay wadin markii aad imika ay joojisay halkaan marinayay marka adigu Ibrahim sidii buu ninkii kula baxay aniga marka gurigii baan anigu imi gurigii markaan imi waxa ii yimid niman ciidamo ah oo saraakiil oo labisan waxay